maanta ay taariikhdu ay ku astaysan tahay 6 bisha shanaad sanada 2017 waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle toos kaga bilowday imtixaanaadka kama dambayska ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 kuwaasi oo ay u dareereen ardaydii ugu badneyd sanadkani. ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Jowhar oo aan booqasho ku soo maray ayaa waxa ay Bulsho TV kaga hadleen hamiga imtixaanka ay u hayaan iyo sidoo kale natiijooyinka ay ku hanweyn yihiin inay keenaan marka uu idlaado imtixaanka. ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Horseed ee magaalada Jowhar ayaana Bulsho TV la hadlay iyagoo sheegay in dareenkooda maanta uu aad u gacsan yahay isla markaasina si weyn ay ugu soo diyaar garooween ka qayb qaadashada imtixaanka. maanta ayaan fariisanaynaa imtixaankii ugu dambeeyay iskuulka aan imtixaankana la qaadayo waa iskuulka Horseed dugsiga sare dhexe ee Horseed. maanta ay tahay maalin sabti ah dhammaan waa fasalkayga waa fasalka saddexaad dugsiga sare. waxaan maanta u soo diyaar garownay inaan u fadhiisano maadada ugu horeysa imtixaanka aan galayno waxay tahay maadada tarbiyo iyo suugaan. alxamdulillah maanta ilaahay noo fududeeyay. تربية iyo سيد waxaan rajaynayaa inaan boqolkiiba saar magaciisa Isgariyo Cumar Maxamed oo dhigto fasalka lixaad tarbiyada saynis labada maada waxaan rajaynayaa in boqolkiiba boqol. warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. magacaygu waa Afiya anoo ka socdo fasalka lixaad waxaan rajaynayaa in aan keeno natiijo fiican tarbiyo iyo saynis waxa uu baaqlaa inay iska dhaafaan qashka. imtixaanka kama dambayska ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 oo ku idlaan doona isbuuca haatan aynu ku guda jirno ayaa waxaa xigi doona imtixaan ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya kaasi oo ay u fadhiisan doonaan ardayda fasalka afraad ee dugsiyada sare iyo ardayda fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe. Cabdifataax Ahmed Maclow, Cabdifataax Zaki, Bulsho TV, Jowhar.